waxaan maanta halkan farxad weyn idinka helnaa annagana maa in madaxweyne ku-xigeenkii jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil oo maanta halkan inala joogo waxaan leenahay aad iyo aad bay farxad ugu tahay dadweynaha reer Baki mid taariikhana ugu tahay waxaan inagoo xilduuna joogna xalxeeduna joogto waxaan idiin dhiibayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Awdal mudane Muuse Arab waxa magaalada Baki waxa inoo yimid madaxweynihii dalka gobolkeena iyo madaxweyne ku-xigeenkii Jamhuuriyadda Soomaaliland waa madaxweynihii gobolkeena waana madaxweyne ku-xigeenkii Jamhuuriyadda Soomaaliland sharaf weyn bay noo tahay haddaan nahay xisbiga kulmiye inaan ku soo dhaweyno madaxweyne ku-xigeenkeena sida aad maanta aad u arkayo inaan soo dhaweyno sharaf weyn bay noo tahay waxaan leenahay sida aad maanta noo soo dhaweyseen waa inaan codkana noo siisiin ana ku hadlaya musharaxiinta codkooga waxaan leeyahay haddaad tihiin reer Baki sida aad maanta noo soo dhaweyseen waa inaan codkana u siisiin inamadiina aan u soo xulay waa xul weeyaan loo soo xulay ma ahayn sida xisbiyada kale nin walba reerkiisa keenay nin walba odaysiisa caqligiisa keenay nin walba waa nin la soo xulay sida la'andigeed waxa weeyaan kuwii maanta hoggaanka inoo qaban lahaa horumarinta ee dawladda kulmiye wado kuwii intaaba naga dhiman waxaad noogu daraysin intaa maanta hadduu alla yidhaahdo ballanteennuna waa sidaas oo maahan soo codkana siin maysaan waxaan ku soo dhawaynayaa maalinta xisbiga oo inoo dheer tahay madaxweyne ku-xigeenkii jamhuuriyadda Soomaaliland una soo booqday aad iyo aad bay waa qiimo aad iyo aad noogu gaar bay noqonaysaa waxaan halkan ku soo dhaweynayaa iyadoo waqtiga maanta oo dhan aan joognay saacadaha kulul waxaan ku soo dhaweynayaa wasiir xigeenka wasaaradda waxbarashada علي حمزي أتبان ذي سلامة يدوينين reer Baki sida fiican ee diiran ee wanaagsan ee saacada kowdii iyo barkii duhurnimo aad wadada u taagnaydeen ilaa saaka aad baan idinka mahadnaqaynaa waa mahadnaq gaara waxaan kaloo idin sheegayaa afarta degmo doorasho ee gobolka Awdal waa degmada quraata ee maayirkeedu isbedelin ee uu kulmiye ahaa weligeedba
وحوي دقمدن وحقبت كذا وانا غيدين سلاي عفمات كوها لما دقمدن ودن ديستريقا بك اللي ينالو سلاي وحبرشاد وهايد سلاي وحكا سبا هاي وانا سعوتان ما انتنا سلاتين لما نسكولي دقمدن بك ودن من دلا إلا يوم فدحن سكول بلا فريق ما تبجروا وحقبت كي دولة كل بيلا سنية قوقا واضح يساوي وحقبت كيني سوما ما كانوا حوالي ولدين حمتا غماء الذين نسي معلمينتي عافماتكينين ليدين بلنقاضي والسنة كعصب ديستريك هوسبيتال ليدي كان يسيدك ماذا بكي سوما هذا حرماتي يكون مني إذا ضدك كشر عن حسب الكلمية سطح يتوقع إذا عدك سيسان بل كانوا سوق كلمية معها ساعد دورة للشوقة هذا كديرين مايو وحكو سو دوين ليا وسير كبعد بعدي وحاديات شرف وينوغوا سو دوينتا آد كيادك لوغا شقيي شرفت له وقت قدير نقول سوغيسين هالكن يروي مانتا ذاتك الريبا كي ايوتا هاي تاريخ ومالنتي وغور ريسي يوم مدحوينه كحجين بكي يماضو waxay noqon doontaa maalin taariikhda lagu qoro reebaki oo ah meel aad iyo aad muhiim ugu ah wasaaradda beeraha gaar ahaan oo dhulka wax soo saarka ugu weyn gobolkan Awdal ay ka mid tahay oo wax soo saarka halkan ka soo baxa lageeyo Awdal iyo Djibouti iyo Hargeysa iyo meelo fara badan oo xataa Itoobiya u gaadho wax soo saarka halkan waa dugsoontii wasaaradda beeruhu dadaalka weyn ee ugu jirto sidii kor ay ugu soo qaadi lahayd horumarka Baki waxay Baki ka tirsan tahay meelaha hay'adaha ugu faraha badan leh ee waddanka jooga ay ka shaqeeyaan sida hay'adda FAO hay'adda DAI USA imika banka Afrika ee banka Islaamka oo isaguna muddo dhow isna hawlo ka bilaabi doona hay'adda IFAD hay'ado fara badan baa gobolkan ama degmada Baki hawl ka haya insha Allah waxaa jira dariiqyo laga wado degmada Baki oo ka mid yahay Kadila Ruqi sida dariiqa Xeego Boorama dariiqyo badan baa laga wadaa insha Allah hawlo fara badan oo soo socdana way jiraan degmada Baki sidoo idin sheegay gudoomiyaha xisbiga ama idin sheegay wasiir ku-xigeenku waxaan u soconaa maanta si aan u dhamaystirno dadaalka weyn ee ugu jirno horumarka gobolka iyo degmada in xisbiga kulmiye aw maanta aw dadka reer Baki aw ku codsanayo si horumarkiisa u dhameeyo in la taageero oo la isgarab taago musharaxiinta xisbiga insha Allah taana waxa weeye xisbigu waa idin muuqda waxay hawlo idin qabtay idinkuna waxa la inaga rabaa inaad jawaabtii la inaga helo hadalkaynu ku badin maayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa hadda si uu madaxweynaha ugu soo dhaweeyo la taliyaha madaxweynaha Axmed Xasan Carwo mid kale oo reer Awdal ay nasiib ku leeyihiin waxa weeye muddo 20 sanadoodaba Awdal madaxtooyada marna kama faaruqin waxayna mar walba ahayd Awdal tadoorata ee dawladda berber taagan oo xisbi muxaafida maadaama ay ka soo jeedaan nin Awdal mar walba taagan oo madaxtooyada ku jiro tii u maleemayo in madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici kaga bixi doontaan sida ugu foodi jirteen madaxdiina in ugu foodaan weeye sida ugu qiimaysaan waa nin qiimo badan waa nin ilaa xal 3 cishaan la joogay albaabkiisu furan yahay ma arag nin madaxa oo albaabkiisu furan yahay oo hadiya habeen dadku soo geliyaan madaxda kale askar bay dhigtaa dadka inta badan way iska celisaa isagoo albaabkiisu waa furaa ninka waxaan idinka doonayaa markaa inay sidii xulkii hore ugu foodayseen magaciisa kor u qaadaan ugu foodaan dadka waxa aan fariin u gudbinayaa intaan kulmiye ahayn intiina kulmiyaad baa u mahadsantihiin intaan kulmiye ahayn waxaan u sheegayaa horta marka ugu horeysa marxaladda dalku uu marayo ayaa u baahan inaad fahamtaan oo ina ahayn goli deegaanka kaliya lama dooranayo
waxaa la dooranayaa 3 xisbi oo 10 sannadood oo soo socda keli ku kaliyeysanaya siyaasadda taa ina ka fiirsataan baa loo baahan yahay ma waxaynu doorannaa xisbigii guusha keenay ee waayo aragga ah oo maanta keligii xisbi ah waayo waxaanu ognahay labadii xisbee kale udubna inay meesha ka baxday ucudna inay urur isu rogtay oo niyo ucud baa imaka la yidhaahdaa waxay jireen ururadaas waa bilo gebigooduba ururaha bilaha jiray miyaynu ku aaminaa marxaladda dalkeennu maraayo oo ah wakti soomaaliya wadahadal lala gelaayo wakti ictiraafka laga hadlaayo waxaa loo baahan yahay dawladda dhexe iyo dawladda deegaanku inay wada shaqeeyaan si adduunyadu inoo tixgeliso oo inay noqoto ummad masiirkeeda ka tarshanaysa oo madaxdeennu ay odhan karto taageeradii aanu helnay tu ka badan baanu helnay taasi bay ku dagaalgeli karaan laakiin haddaynu isugu ururino 7 urur oo dhammaantood mid walba aanu hadaf lahayn ee afraadi isugu soo hadho golaha deegaanku wuxuu noqon doonaa meel la isku haysta hadiya habeen taa inaynu ka ilaalino oo vote majority oo xooga xisbiga kulmiye uu ku siino si marxaladda adag ee dalkeenu ku jiro uga baxno si aanay masiirka 10 sannadood soo socda gacanta ugu gelin xisbiyo dhowr bilood u jireen magacyadooda oo inaan garanaynin mustaqbalka meel ay noo hagi doonaan taa ina ka fiirsataan baan aad iyo aad u jecelahay oo aydaan u arag wax uun deegaanku la dooranayo aad baa u mahadsantihiin waqti inta inka badan waa hadli lahaa dadweynaha reer Baki taageerayaasha kulmiye waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida sharafta leh ee karaamada leh wadaniyada leh nagu soo dhaweyseen waqtiga ay carabtu la saacatul qaafuur waqti adag oo saacadii qadada iyo adag joogtaan haddana sida wanaagsan noo soo dhameyseen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin taa markaan mahadda kadib waxaan runtii ku faraxsanahay inaan maanta idin nimaadno aan Baki nimaadno inay maanta anigana farxad weyn tahay oo maalintii koowaad ee nimaadno intaan xilka hayay oo isugu dambeysay markii ololaha doorashadu u socday isugu dambeysay maanta farxad weyn bay tahay inaan markii koowaad nimaadno iyadoo waqtigiisii waayay inaan mara hore badan baan imaado oo xagga alla ka soo galin aad iyo aad bay farxad u tahay maanta in la joogo Baki nin hal baad lagu lisay waxa fulay bay noqdeen intii badnayd inta hadheenaan kol mar walba ku taamayno inaan gaadhno waxa ka mid ah balamahaas inaan sidii wax soo saarka loo kordhin lahaa oo hay'adaha mar walba ku jahayno dhulka beeraha meel walba hay'ad wal kastaba meeshii ku haboon haday xoolaha tahay meelaha xoolaha ku haboon haday hay'ad tahay beeraha meelaha ku haboon wax soo saarka wax isbeddelka la sameeyo kale wax barashada ka mid ah caafimaadka ka mid ah adeegyada asaasiga ah ee ballan qaaday wax badan ka bedelay hadii dadkii shaqaalaha ahaa ee ogeeday waxay ku noolaayeen intii taalkeena aynu bishaarkii u laba laabnimo la socotiin inta dhimanna waan ku taamaynaa oo marna kama seexano dalku waa dalka adogtiina curdinka muddo 20 sano ku 20 sano marayna intii Soomaaliya ictiraafiyay in gaadhin haddana caalamka in aangarada awgeed online maanta inaan ictiraaf filin wax badan oo inaga dhiman baa jiro shaqaalaha badan baa jirta taana bedelkeeda dadaalkeeda waa ku jirnaa sidii shaqooyin loo abuuri lahaa sidii khayraadka dalka ku duugan loo soo saari lahaa baan habeen ka shaqeyn ku mashquulsanahay imika maanta waxa halka idinku nimidnay sida walaalkay sheegay taliyaha Axmed Xasan Carwo la taliyaha madaxweynaha waxaad dooranaysaan maanta xisbiga ballantii fuliyay ee horumarkii dalka kor u qaaday oo raba in horumarkii dawladda dhexe waday iyo dawladda hoose isku xilmaan rabaan inaad taageertaan ma rabnaa oo guushii noo buuxsanto oo waqtiga adaga galayno xisbiga maartay waayaragay muddo soo jiray inuu hawshii wado halka aad ka dooran lahaydeen xisbiya cusub wax la yimid inaan garanayn ama waayarnimo badan lahayn wax walba waa barasho taa codkeeda waa idinka rabnaa annaguna waxaan ballan qaadaynaa wixii aan hore u ballan qaaday inta dhiman dhamaystiri doono Baki aan kala shaqeyno sidii wadooyinkeeda aan ugu furi lahayn caasimadaha maartay ama Boorama ama xagga sare ogaday la dilay Hargeysa sababtoo wax soo saarkooda suuq qiimo galo uu meel u gaadho waa la socotiin ruqi halka wax laga qaadayo ama Baki laga qaadayo hadii looga baahan yahay Hargeysa looga baahan yahay inaad ka wareegayseen Boorama ka wareegayseen way socotaa in yar baan ugu hadhan buurtii raakaasi nikadeeday in halkaad kala tiraadaan wixii wax soo saarkaad muuqala tiraadaan caasimadii Soomaaliya geysaan
kolkay wadada boorama soo gaaraysaa dhammaatana insha allah waxaa noo qorshaysan inay booram iyo sidii laisku xili lahaa iyo baki oo wax soo saarka boorama baki ee lagu quudiyo boorama inuu si dhib yar u gaadho ayaa noo qorshaysan intii kolbey ayna karsiiyo inaan waddadaa ku xigsiino dadweynihii dawladdii isku kaashanayaan idinkuna aad xoolahana maarata u iibisaan wax soo saarka beeraha bar ka bixisaan annaguna aan qaybtada qaadano wixii aan hay-ada ka heli karno wixii dawlad laga hela isku geysano oon insha allah sanadaha soo socda halkaa aan hamadeenu noqoto inaan waddadaas inaan ka shaqayno wadda laamiya mustaqbalka noqoto inay isku xidhmaan baki iyo boorama taa waa riyada iyada weyn insha allah rumo waqti ay rumoodaba sidaa darteed maadaama anagu diyaar u nahay dhankayaga inaan mar walba wax qabanno idinkana waxaa idinka rabnaa in waxaad nagu taageeraysan agtaa ina codkaa weeyaan maanta idinku codkaad leedihiin qofku mar walba waktigu wax soo maraan waktiga wax soo mara waxa weeyaan mar madaxweyneha baa la kala dooranayaayo maalintaasuu muwaadinku xaq leeyahay inuu doorto kii wax u hagaajiye dib u celiyo kii wax ka xumeynayna waa raalli ah waa codka waa kaa daynin kol kastaba fursadda inaad lumisaan maaha maanta fursadda laydinka rabaa waxa weeyaan inaad fursaddii golaha deegaanka 13 halka inii soo sharaxnayna aad soo saartaan xisbigii kulmiya soo saartaan gacantiina maad ku jirtaa sababtoo ah annagu rubaa idin sheegaya waxa weeyaan annaga oo qarankooda mas-uula haddana hooyada iyo aabbuhu carruurtiisa isagoo ka wada mas-uula haddana ilmaha u naxariista badan leh ama hal jeer ugu dhowdhowa ama maaragtay qabaankiisa ogol si gaaran buu dareemay kolley uu ka yarsid bursadaa dee gobollada somaliland midba mid ka cod badan yahay kolley sidaa hooyadii aabbuhuba maaragtay isbursiinta u siinayaan dareenku kolley waa binaadamka wax ku dhaqan weeyaan ciddii waxna siisa ee maaragtay codadka fiicanna siisaaye dareen gaara iyo xusuus gaara kolley yeelan doontaa ninkii day naga halaala ninkii codkiisu naga halaala haddii ku ka jiro oo binaadamka ilaahay ku abuuray oo mar kastaba qofka haysta hogaamiyuhu raad buu ku yeeshaa cidda doorataa ku yeelataa waxa weeyaan raadkaa ha ka hadhin oo inta raad ku yeelanaysa degmooyin raad ku yeelanaysa somaliland ka mid noqotaan oo dadka lagu ku faanaya beritoole waxaan nahay dadkii soo saaray xisbiga kulmiye dee reer bakii baa laga rabaa inay noqdaan taasi soo ballanteena maaha taasi soo ballanteena maaha annagana waxaa naga ballana waxa le wixii suuragala inaan degmadaasi kor u kacayso inaan ka shaqayno sidaa iminka waxaan wasiirka beelu inii sheegayay intii hore idinla shaqaynaysa maaha in hay-ad iminka tijaabo ah oo mashruucu soconaya dhowr sannadood ayaa iminka inii imanaya oo xagga wax soo saarka beeraha caafimaadka waxbarashada yani collective maarata needs waxa baahiyaha wada jirka ah degmada wax ka qabeen inii socda insha allah sanadka 2016 nii bilaabmaya marka dadaalkaasaan ku jirnaa annaguna waa nii ballan qaadaynaa hor ilaahay inaan wixii qarankaasi qaybtiina aad ka helay aad ku leedihiin inaan siino idinkana ballantaas idinka rabnaa waa ceedeed baa kusoo daasheen aad iyo aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu